waxaad ogtahay haddaad saxaaro joogto iyo haddaad guri hoostii ku jirto iyo haddaad meel isku qariso ilaahay waa ku arkaya. qofka mu'minkaahi meel kastaba ha jooga wuxuu rumaysay in rabbigii taalacanayo, dabeetana wuxuu ka xishoonaya in alle ku arko wuxuu ka reebay, wuxuu ka xishoonaya wax ilaahay faray inuu ka gaabiyo. ilaahay baa qur-aanka isagoo munaafiqiin ama dad aan fiicnayn ka warramaya wuxuu leeyahy yastakhfuuna min annaas, dadkay ka qarsanayaan baa ilaahay yidhi, walaa yastakhfuuna min allah, ilaahayse ka qarsan maayaan. markay xadhig mareegayaan ama xumo samaynayaan oo caynkan bini aadamka waa iska qarinayaan baa ilaahay leeyahy walaa yastakhfuuna min allah wa huwa macahum, ilaahayse kama xishoonayaan isagoo alle macooda oo og id yubayituuna maa laa yardaa min alqowm. waa marka ay habeenkii ku hadlayaan baa ilaahay leeyahy, ku habeensanayaan wax aanu ilaahay raalli ka ahayn war ah. wa kaana allahu bima yacmaluuna muxiita, ilaahayna subxaanaه wa tacaala waxay samaynayaan oo dhan muxiiط buu ku yahy, waa ku koobay. sawgeed baa ilaahay wuxuu leeyahy yaclamu maa yaliju fi اlardi wamaa yakhruju minha, ilaahay waa ogyahay waxa dhulka gala iyo waxa ka soo baxaba. wamaa yanzilu min الsamaaء wamaa yacruju fiiha, wixii cirka ka soo dega iyo wixii koraba ilaahay waa ogyahay. wa huwa macakum aynamaa kuntum, meel kastoo aad joogtaanna rabbi waa maciin. wallaahu bima tacmaluuna basiir, waxaad samaynaysaanna ilaahay subxaanaه wa tacaala waa arkaya. waxaa ilaahay nebigiisii moxameda calayhi الsalaatu wasalaam u tilmaamaya markuu khayrka samaynayey in ilaahay arkayo. watawakal cala alcasiizi الraxiim baa ilaah yidhi, waxaad tala saarataa ilaaha haalibkee xooga badan, raxiimkee naxariis badan, aladii yaraaka xiina taquum wa taqallubaka fi saajidiin, allaha ku arkaya marka aad istaagto salaad isu taagtid, iyo wa taqallubaka fi saajidiin, kuwa sujuudsan marka aad dhex socota allaha ku arkaya. innahu huwa الsamiicu اlcaliim baa ilaahay leeyahy, innahu huwa الsamiicu اlcaliim, ilaahay waa ku maqlaya oo arkaya. waxaa rabbiina leeyahy maa yakuunu min najwa ثalaaثaة ila huwa raabicuhum ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. صدح ما فقده إلا إلهي باكو أفر وأجي ربي وحيكو فقيا أفر ما فقده هذا فقان إلهي باكو شانا، أما شاني ما فقده إلهي باكو لحا عيد كستا إن كبدن إيا إن كيريتون ما فقده إلهي إلا يددك معودي. إذن قفك يقين صدا إنه إلهي مر والبطال عنه، يقين صدا ربي إنه كحشوضه، يقين صدا إن إلهي إليه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. حبل الوريد هو كم من وقدونا هيبا إلهي إليه. إلهي القرآن كما حكمت الماما وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي وقريب من المحسنين. إلهي wuxuu leeyahay hadday addoommahaagu ay kaa weydiiyaan, addoommahaygu hadday kaa weydiiyaan waxaad ku u sheegtaa fa innii qariib, waan dhowahay baa ilaahay yidhi, anaa dhow oo ajiibayo maqlaya kay baryaya baryadiisa. nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay ina axadakum idaa qaama yusalli fa innamaa yunaaji rabbah, war midkiin hadduu istaago uu rabo inuu tukado waar ha ogsoonaada ilaahay buu la hadlayaay, bal ee ilaahay baa kuu jawaabaya. alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin markaad tidhahdaan rabbi leeyahay xamidanii cabdi, addoonkaygii baa i mahadiyey. alraxmaan alraxiim markaad tidhaahdo ayaa rabbi kuu jawaabaya. maaliki yowm iddiin markaad tidhahdaan rabbi kuu jawaabaya. iyaaka nacbudu wa iyaaka nastaciin markaad tidhahdaan rabbi kuu jawaabaya. ilaahay baa le addoonkaygii baa i mahadiyey, addoonkaygii baa i ammaanay, addoonkaygii baa i weyneeyey, addoonkaygii waxa uu la yimi waa wixii noo dhexeeya aniga iyo addoonkayga, i weydiiso waxaad doonto markaasaad bilaabaysaa ihdina siraata almustaqiim. waxaad ilaahay weydiisanaysa waa kan uu nabigu tilmaamayo inuu ilaahay yidhi subxaanaه wa tacaala ana cinda danni cabdii bi, addoonkaygu wuxuu iga malaysta u baanahay. malahaad adigu rabbigaa ka malaysanaysaa intuu leegi halkaasaan kuu joogaa baa ilaahay leeyahy. haddaad i xusto waan ku xusi,
naftaada haddaad iga xusto anaa tayda kaa xusi haddaad dad dhexdii iga xustana mala ka khayr badan baan kaa xusi haddaad taaka ii soo dhowaato baa ilaahay leeyahay waxaan kuu soo dhowaanayaa dhudhun haddaad dhudhun ii soo dhowaatana baac joog baan kuu soo dhowaan haddaad socod iigu timaadana aan ordayaan kuu iman baan rabbi leeyahay yacni waxaa rabbi tilmaamaya mar kasta inta aynu inagu alle u jirsanno in ka dhow inuu rabbi subxaanahu wa tacaala kuga abaalmarinayo walidaalika baa culammadii muslimiinta qaar ka mida waxaa laga sheegaa inay odhan jireen jannada adduunka ninkaan ku dhadhamini jannadii aakhire kaasi dhadhamin garan maayo jannaday sheegayaan waxa weeyaan ilaahay ku xidhankiisa inay cibaadadu dhadhan kuu samayso inaad ilaahay weynidiisa dareento inaad ilaahay wuxuu nimco ku siiyey dareento inaad ilaahay mahadnaqiisa badisid inaad rabbigaa subxaanahu wa tacaala u heshatid xudayfa bnulyamaan baa wuxuu leeyahay nebigaa ku xidhay calayhi salaatu wasalaam habeen isagoo tukanaya dabeetana albaqruu bilaabay buu yidhi markaasaan sidhi buu yidhi dee malaa ilaa 100 aayadood waa jis dhadhow jisku 120 meelaha waxaan sidhi buu yidhi 100 aayadood markuu akhriyo wuu rukuuci doonaa markaasuu ka socday buu yidhi boqolkii markuu akhrinaya buu socday wuu waday waxaan sidhi buu yidhi malaa uun dee suuradda markuu dhammeeyo haddaba suurat albaqara waa imsa 286 aayadood waa 2 jis iyo dheeraad waana ragcad weli waxa loo taagan yahay